Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kormeer ku tagay xarumaha wasaaradaha caafimaadka, warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska, haweenka iyo xuquuq insaanka, biyaha iyo tamarta, kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo xarunta warbaahinta qaranka. Kormeerkan ayaa qayb ka ah howlaha korjoogteynta ee lagula soconayo shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda. Qorshahaasi oo ku saleysan isla xisaabtan, hufnaan iyo daahfurnaan si mar walba loola socdo horumarka la gaaray iyo dardargelinta howlaha hortebinta leh ee horyaalla hay'adaha dowladda. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa xarumaha uu booqday waxa uu kulamo kula qaatay wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada, waxauna ka xog waraystay wasiir kasta qorshayaashii u degsanaa iyo soo gudbinta barnaamijka xukuumadda ee 100 maalmood uu ra'iisul wasaaruhu la saxiixday wasiir kasta. waxaan jeclaan lahaa maanta inaan halkan idinkugu soo gudbiyo aan ku wareejiyo walaalkay cabdikaafi barnaamijkii bandhiga raadiyaha. aad iyo aad baa umahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda. xarumaha warbaahinta qaranka oo kormeeray ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku bogaadiyey shaqaalaha iyo maamulkooda howlaha muhiimka ay u hayaan bulshada Soomaalida ee la xiriirta wargelinta iyo wacyigelinta bulshada iyo isku xirka dowladda iyo shacabka. marka waa barnaamij aan aad ugu taxnaa waaga telefishinka qaranka intuusan bilaaban ka hor ayay ahayd. maantana waxaan ilaahay mahadiisa inaan fadhiyo meeshii laga soo tabinayay dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho. waxaan leeyahay dhageystayaasha si fiican u dhageysta barnaamijkan, waa barnaamij xiiso leh oo ballaariya maskaxda shacabka Soomaaliyeed. maanta farxad weyn ayay ii tahay inaan soo booqdo wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha iyo dalxiiska, aan arko hawsha siday u socoto, bogaadiyana shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhammaantood. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay shaqooyinka ka socda wasaaradaha uu maanta kormeeray, waxa uuna faray in gacan loogu adeego shacabka, gacan lagu galo doorasho si aysan hakad u gelin shaqooyinka socda. maanta waxaa farxad ii ah inaan soo booqday dhowr wasaaradood iyadoo qayb ka ah barnaamijkii u dhabagalka howlaha ka socda wasaaradaha qaarkood oo aan maanta soo fuliyey. runtii wax weyn ayay ii tahay inaan soo booqdo, sababtoo ah waa wax shacabka Soomaaliyeed ay nagu amaaneysteen inaan dabagalno oon ogaano waxa ka socda wasaaradaha, howlaha halkay u marayaan. xaqiiqdiina waa ku faraxsanahay waxa aan maanta soo arkay. waxaan rabaa wasiir halkan inaan idin sheego in hadda la marayo 100 maalmood aan u baahanahay wasaaraddaadii iyo dhammaan wasaaradaha xukuumadda sidii ay u soo dhameystiri lahaayeen dukumentigii 100 maalmood oo ah maqal iyo muuqaal. taas ayaan rabaa insha Allah hadduu alla idmo maalinta Khamiista ayaan idinka wada sugayaa wasaaradahoo dhan. sidoo kale maadaama lagu jiro xilli doorasho, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa farayaana dhammaan wasaaradaha xukuumaddayda in gacanna lagu shaqeeyo, gacanna doorasho aan kaga shaqeyno. sidaa darteed waa inaysan labada howlood aysan istaagin. midda muhiimadda koowaad in ay tahay waxqabadkii shacabka loo qabanayo ka xukuumad ahaan, sidoo kalena ay dhinac socon doonto doorashadii dalka. waad mahadsantihiin. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.